صار وصار. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يا الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى حكمة ديسة أيو أدوم ديسة كوكلا فضلي وأديرات كالسيي oo uu kala wanaajiyey, oo rabbi tabaaraka wa tacaala sadka iyo siismada umuusan simin. malaa'igtii buu ilaahay kala fadilay, oo aadamihii buu kala fadilay, oo rusushii iyo ambiyadii buu ilaahay kala fadilay, oo zamanka iyo wakhtiga ayuu kala fadilay, oo amaakinta iyo dhulka ayuu kala fadilay. xikmatiisa weeye tabaaraka wa tacaala. zamanka uu sida goonida rabbigeen tabaaraka wa tacaala u fadilo siyaadada u siiyey waxaa ka mid ah bishan barakaysan ee ramadaan ee inugu soo foodle. khasaa'is waxyaalo uu gooni ah buu ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala oo bilaha kale aynan la qabin. rabbigeenna tabaaraka wa tacaala shay haddaad aragto uu fadilayo cabaf iyo ciyaar mee xikmad baa ku jirta. maxaa yeelay tabaaraka wa tacaala ma ciyaaro, ciyaarna wax uma sameeyo. xikmad la-aanna rabbi tabaaraka wa tacaala falkiisu kuma dureersado. wax kastoo uu samaynayo waa xikmadaysan yahay, meeshiisii uu mudnaa buu dhigayaa, lamana gafo rabbi tabaaraka wa tacaala, mana khaldamo rabbigeen tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed bishan barakaysan khasaa'is dheeraada buu siiyey rabbi tabaaraka wa tacaala. waxyaalaha uu siiyey waxaa ka mid ah waa bishii qur-aanka. alla wuxuu soo dejiyey oo bishan u doortay hadalkiisa uu ugu talagalay addoommadiisa oo qur-aanka kariimka ah. dhulka korkiisa iyo adduunyada dhexdeeda waxaan ku hayno wixii ugu qaalisanaa cala al-itlaaq oo qur-aanka kariimka ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala u dooray inuu bishan soo dejiyo. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. sidaas daraaddeed baa bishan iyo qur-aanka waxaa ka dhexeeya xidhiidh iyo calaaqo aan bilaha kale kala dhexaynin. xidhiidh khaasa ayaa kala dhexeeya. ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu hadalkiisa wakhti khaasa la doorto oo zaman gooni ah soo dejiyo, oo qur-aanka qiimaha badan ee dastuurka nolosheenna ah nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bisha ramadaan lagu soo dejiyo, waa calaamad iyo astaan iyo fadiilo ay bishani leedahoon lala wadaagin waay. rabbina tabaaraka wa tacaala meelo qur-aanka ka mid a ayuu ku tilmaamay: innaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka innaa kunnaa munziliin. innaa anzalnaahu fii laylati alqadr. habeenka la soo dejiyeyna sharaf bay qur-aanka ku yeelataa. bisha la soo dejiyeyna qur-aanka soo dejintiisa sharaf siyaadaha bay ku qaadataa iyo darajo. khasiisada uu goonidaa bishanay ka mid tahay. waxyaalaha uu goonidaa waxaa ka mid ah oo bilaha kale ayna la wadaagin. rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku khaas yeelay soonka waajibka ee faradka ah ee tiirka afraad ee tiirarka islaamnimada ka mid ah bishanuu ilaahay ku khaas yeelay tabaaraka wa tacaala. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam. soonkiibaa laydinku farad yeelo, laydinku waajibiyey si aad faa'iidooyin badan uga heshaan. faa'iidooyin aakhariya mid adduunyaba leh. goorma? faman shahida minkum ashahra falyasumhu. bishan baa laydinku laasimiyey ee bisha ruuxii soo gaadhaayay ha soomo.
bishan ilaahay wuxuu u doortay inuu tiirka afraad ee islaamka inuu bishan ku khaas yeelo isku xidhaay oo bilaha kale aan la gudan karin aan la soomi karin waa soonka fariidada ee rukniga ayadana waxay ku tusaysaa rabbi tabaaraka wa tacaala inuu siiyey khasiiso u gooni ah oo bishani ay leedahay soonkaasi waa cibaado weyn oo rabbigeen jecel yahay tabaaraka wa tacaala waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu waaweyn ka mid sidaas daraadeed ayaa nabigeena wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ibni aadamka camalkiisa dhammaantii waa la laban laabaa markaad la timaado khayrka iyo taacada waa lagu laban laabayaa alxasanatu bicashri amhaaliha camalka wanaagsan iyo hadalka wanaagsani markaad la timaado 10 goor baa la laban laabayaa ilaa wuxuu gaadhi karaa 700 oo goor in lagu laban laabo ilaa intaa ka badan oo alla ogsoon yahay in la laban laabaa dhici karta waase la yaqaanaa camalka bini aadamka miisaanka iyo qiyaasta la laban laabo sidaasuu nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh halkaa markay arrintu marayso rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi soonka mooye soonka anaa iska leh abaalkiisana anaa bixinaya isaga lama garanayo inta la laban laabi doono waa hawl ilaahay khaas oo ah tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka kale ay ku socdaan 10 goor laban laab 700 laban laab qiyaastaasi kuma socdo soonku ee qiyaasta lagu bixinayo abaalgudkiisu waa mid ilaahay la gooni yahay illa as-sawm fa innahu lii wa ana ajzi bihi ana abaalkiisa bixinayo oo khaas la abu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala sababtuna waxa weeye rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli doonidiisii iyo cuntadiisii isagoo gaajaysan iyo cuntadii dartay uga tegaya shahwadii xubinka taranka iyo farjiga buu iska celinayaa asagoo u baahan oo naftiisu ay rabto aniga dartay buu sidaa u sameeyey sidaas daraadeed abaalkiisa aniga unbaa bixinaya buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala khaas cibaadada intaa la ega rabbi gooni leeyahay ajirkeeda iyo abaalkeeda waxay khaas ku tahay bishan barakaysan ee ramadaan bay khaas u tahay waa midka laasimka ee faradka ah khasaa'ista bishay ka mid khasaa'isteeda waxaa ka mid ah allah tabaaraka wa tacaala habeen kasta oo habeenada bisha ramadaan ka mid ah qayb adoomadiisa ka mida ayuu xoreeyaa oo naarta ka xoreeyaa xadiidka nabigeena sida ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeen kasta oo ramadaan alla wuxuu leeyahay adoomo uu cafiyo oo uu naarta ka saamaxo oo uu qoortooda naarta ka xoreeyo alla leeyahay tabaaraka wa tacaala waa habeen kastoo soo gala waa bishu markay dhammaatana ayadana khalaa'iq aan la tira koobi karin oo alla uun ogsoon yahay ayaa iyagana laga saamaxaa waxoodii iyo dembigay galeen oo ilaahay qoortooda naarta ka xoreeya sidaas daraaddeed waa shahrul cidqi waa bil lays xoreeyo waa bil lays cafiyo waa bil lays saamaxo waa bil laysu dembi dhaafo ayu camal oo adoonku la yimaado waxaa ka dhalanaya dembi dhaaf baa ka dhalanaya wuxuu nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bisha ramadaan ruuxii soomay asagoo ilaahay dartii u soomayo ajir ilaahay kaga raadinaya allana rumaysan dembigiisii hore oo dhan baa la dhaafaa kadalika habeenada ramadaan ruuxii istaaga oo salaada taraawiixda iyo leylka tukadaay isagana dembigiisii horaa la dhaafaa kadalika habeenka laylatul qadriga ruuxii istaagaay isagana dembigiisaa la dhaafaa cumro in lala yimaado bishan barakaysan xaj bay u dhigantaa sadaqada lala baxaayo way laban tahay haakada dembi dhaaf iyo cafi iyo barakaad iyo khayraadkeedu lama koobi karayo la mid maaha xilliyada kale khasaa'isteeday ka mid tahay khasaa'isteeda waxaa ka mid iyo waxyaalaha ay goonida la tahay bishan barakaysan habeen waxaa ku jira aan meel kale laga helin waa habeenka laylatul qadriga ah allah tabaaraka wa tacaala uu sheegay inay u dhiganto 1,000 bilood bay u dhigantaa camalkaad la timid qur-aankaad habeenka akhriday sadaqadaad la baxday salaadaad tukatay taacadaad samaysay
cumrada aad gudatay camalkaasi wuxuu u dhigmaa 1,000 bilood camal aad la iimaanaysay oo kaleetuu la ajir yahay waa wax weyn waa kasab aad iyo aad u weyn waxay u dhigantaa 1,000 bilood marka sanado loo bedelo waa 83 sano iyo ziyaado waa ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ruuxa ugu dadka ugu cimri dheer meelahay gaadhaan bay kamid ilaa wax yar oo naadir oo dhaafo mooyaan marka in hal habeen inaad ku kasbato amalkii 83 sano la shaqaysan lahaa wax saalan ma ka waran hadii lagu dhihi lahaa caawa hadaad soo jeeto shaqaysato waxaad helaysaa 83 sano soo socda waxaad ku noolaan lahayd oo xoolo ah dalka waran maxaan sameyn lahayd bay kula tahay hal habeen kaliya hadaad shaqay soo jeedo 83 sano soo socda waxaad biilan lahayd waxaad ka dhigan lahayd guri kiradii isbitaalkaagii iyo caafimaadkaagii waxaad ku tabashalayn lahayd halka habeen baa lagu siinaya hadii lagu dhilaa ka war 83 sano shaki kuma jiro mid inaga mid inuu san saxday hurdaba la isku maday tii wax ka weyn baa yaalo 83 sano oo akoon aakhira galaya weeye oo janno iyo ridda rabbi iyo alla daawashadiisa tabaaraka wa tacaala iyo waxyaalo waaweyn lagu helayo waay ma aha duufkan adduunyo mehe wax ka qaalisan baa laga hadlayaa sidaas daraadeed khasiisadaasi iyo hibadaasi bishan dhexdeeda ku jirta meel kale laga helo khasaa'ista bishan ay kamid khasaa'isteeda waxa kamid ah aan la wadaagin ee lagu fadilay waxa kamid ah markay soo gasho Allah tabaaraka wa tacaala adoomada khayrka iyo wanaagga sameeynaya aqabaadkii iyo wax kasto khayrka ka hortaagnaaba laga zuulinaya yaa meesha laga saaraya gogoshii baa loo dhigayaa jidkii baa loo xaaraya fursadii baa la banaynaya wax kasto oo aqabad aha oo dhan baa meesha laga saaraya markaas waxa lagu leeyahay shaqayso waa kan jawigu waa diyaar hawshu waa diyaar kaalay adeer kasbo kaalay beerta falo sida nabiga xadiis salawaatu rabbi wa salaam alayhi xadiiskiisa ku sugan markii ramadaan soo galo iridaha naarto dhan baa la xidhaa iridaha jannado dhanna waa la furaa shayaadiintana waa la silsiladeeyaa xadiidka riwaayadiisa kale waxay leedahay habeenka ugu horeeya ramadaan markuu dhasho waa habeenka ugu horeeya qoraxdiisu markay dhacdo nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi shayaadiinta iyo jinka kiisa macangage madaxa adag ayaa la katiinadaynaya xabsi baa la gelinaya iridihii naartana waa la wada xidhaya hal irida la furi maayo iridihii jannadana waa la wada furayaayo hal irida la xidhi maayo markaas mid dhawaaqaya wuxuu leeyahay war khayr doonow kii khayr rabayow soo qaabil kaali faa'iideyso wixii oo dhan waa la salaxay hawshu waa isku dubaridanta dariiqi waa la salaxay gogashii waa la dhigay wixii ku dhibayo waa la qabtay adeer kaali faa'iideyso kii xumaan doonahayo wax qasahayo wax kharibayo dadka khayrka ka hor istaagayna waxa la leeyahay asaga gaabsaan la leeyahay waqtigaagi ma aha jaanisku kaagi ma aha waqtigu waa isbedelay bil ramadaan baa la joogaa adeer gaabsaan la leeyahay hadduu gaabsan waayeen day isaga isgaranay sidaas daraadeed khayr doonihiina waa loo salaxay shar doonihiina waa la qabto waa la xakameeyay bisha ramadaan baa iska leh atarkeeda iyo raadkeeduna waa inoo muuqdaa oo bishu markay saa u soo gasho waxaad arkaysaa goobihii khayrku waa buuxsamayaan masaajidii waa buuxsamaysaa 11 ragcadood 22 ragcadood meelaha qaarkood ayaan taagnaanaynaa juz iyo ka badan marka qaarkood lagu tukanayo u sabraynaa la taagnaanaya odayga dumarka dhalinyarada waa la taagay lama adkaysan karin intaasoo kale bilaha kale qur'aan baa la akhrinaya masaajidu waa buuxda meel laga tukada la laay dadkii aan masaajidaba aqooni baa masaajidii bartay kuwii duurarkii laabka ku jiro qaadka cunayay baa soo baxay masaajidii waa buuxda
yaa wardadkani xagee ka yimaadeen maxaa haystay magaalada maxaa ku soo kordhay waa la isweydiinayaa maxaa ku soo kordhay maxaabiistii shaydaankaa soo fakatay odaygii markii la xabsi la geliyey maxaabiistiisii baa soo fakato masaajidda buuxisay khabarka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh misdaaqiisii oo bannaanka yaallo waa yacni bisha ramadaan baa iskale khasaa'isteeday ka mid tahay sidaas daraaddeed haddii ilaahay fursaddaa ina siiyo jaaniska kuu goglay meesha maxaa imaanaya marka adeer saa haddii wax lagugu diyaariyood ka faa'iidaysan weyday soo inaad khasaarsan tahay maaha meeshaa way meeshay marka ku imaanaysaa xadiidkii khudbadii hore aan kaga soo hadalnay ee nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bucdan liman adraka ramadaana falam yugfar lah jibriil uu yidhi nebiguna aamiin yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ruux jaaniskaa la siiyey oo faa'iidaysan waayey oo duurkii weli ku laaban oo aan isbedelin oo ramadaan baxay oo xaaladii sidii uusan kaasida maxaad ka sugaysaa marka ha la fogeeyo kaasi ma istaahilo fogeyn waxaan ahayn habeenkaasi laylatulqadriga 83 habeen u dhigma ama 83 sano u dhigmaan dhihi lahaa ayadana nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxa khayrkeeda ka qaday kaasaa wuxuu yahay midka la qadiyey haddaad mid qataloo habaar qaba aragto ama aad maqashay waa nin laylatulqadri ay dhaaftay oo ka faa'iidaysan waayo mid habaaran oo balaayo qaba oo nasiib daran haddaad aragtana waa midka ramadaan u soo galay oo jaaniska aan ka hadlayno oo inta la siiyey jaaniskii ka faa'iidaysan waayey saa ku dhaaftay isagoo loo dambi dhaafay bucdan lahu wa suxqan lahu baa le marka ha fogaado alla ha fogeeyo kaan isaga ah halkaasi waxaynu fahmaynaa marka inaynu isu diyaarinno khayrkan iyo wanaaggan iyo barakadan ilaahay ina siiyey tabaaraka wa tacaala haddaynu nahay khaasatan ummaddii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbigeen inoogu deeqay deeqdaa rabbigeen tabaaraka wa tacala waa inaan qalbi furan ku qaabilno si wanaagsanna u soo dhowayno si wanaagsanna uga faa'iidaysanno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala nabad iyo caafimaad haynugu gaadhsiiye saluu wasalimuu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان بأمن وأمان يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى نسألك النظر إلى وجهك الكريم ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا هلال أهلا أهلا كيف الحال